بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسنا خيارتها وديغا داوتاي كسو دhowaada wararkii Soomaalida ku wadii ugu dambeeyay hadahan iyo hadal mid ka daawatan biijkan maqal wareedkan soo socday weyn haduu idmo waxaad ku maqli doontaa macluumaad ku saabsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xaqiijiyay arrin muhiimad ah xilli ay walaac ka muujinayso Puntland hadda maxay tahay arrinta madaxweynaha oo muhiimka uu ka dhawaajiyay iyo sidoo kale caqabada ay ka muujinayso Puntland ama walaaca ay ka qabto Puntland labadaba mid ka rabto oo dhee Soomaaliga waa isku mid ah intaan ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadlan muuqaalkan leega saar oo share garay aynu ku bilownay saaxiibayaal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaqiijiyay in dawladda federaalka Soomaaliya cid kasta oo Soomaaliyeed oo ay colaad u hayso inaysan jirin xilli ay walaac ka muujinayaan maamulada qaar oo ay ka mid tahay maamulkaasi Puntland madaxweyne xasan ayaa xuseyn khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira aysan ku saleysnayn deegaan qabiil ama shakhsi isagoo sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay inay ka hortagto cid kasta oo isku dayaysa inay dhiig daadiso qalqal geliso amniga ama dhaawacdo buu yiri oo ama ay dhaawac u geysato midnimada federaalka ee dawladda Soomaaliya madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in dawladda federaalka aysan doonayn in ay dhiig daadiso ama colaad ay abuurto balse ay waajib tahay inay ilaaliso amniga iyo sharciga iyo xasiloonida dalka wuxuu sidoo kale ka digay hadallo iyo ficilo oo ku sheegay inay kicin karaan shacabka Soomaaliyeed dibna ay u xusuusin karaan ama dib ay u xusuusin karaan buu sheegay ama ay dib u faagi karaan buu sheegay boogihii hore ee sokeeye waa sida uu warka u dhigay ma jiraan buu yiri qof Soomaali ah oo ay dawladdu ay cadowtinimo u qabdo iyo mas'uuliyiinta dawladdu ay u qabaan ma jiraan muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayuu sheegay in ay xoojiyaan dawladnimada ayuu sheegay iyo wanaaga waxtarka sharafta iyo karaamada ayuu yiri madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud aynu u hayna buu yiri dadka Soomaaliyeed waa sida warka u dhigay madaxweynaha ayaa sheegay in ay waajibka koowaad ee dawladda saaran uu yahay ilaalinta sharciga midnimada dalka iyo xoojinta Soomaalinimada uu yiri in hal dhinac ay u socoto Soomaalidu sida darteedna aysan jirin buu yiri nacayb iyo colaad cid gaar ah ay dawladda dhexe ee Soomaaliya ay u hayso ayuu ku sheegay sidoo kale warka waxa lagu sii sheegay qof kasta xor ayuu u yahay buu yiri inuu cabiro fikirkiisa iyo aragtidiisa ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale wuxuu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in laga fogaado hadallo uu ku tilmaamay kuwa dadka Soomaaliyeed kicin kara ama dib u xoogi kara buu sheegay boogihii hore ee bulshada Soomaaliyeed ay soo mareen waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal dhan kale madaxweynaha oo hadalkiisa ku sii dharay wuxuu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya buu yiri ayaan ugu dambeyn ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan wanaaga nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu sii sheegay saaxiibayaal sidoo kale si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli Puntland ay ka digtay colaad ka abuuranta oo ay sheegtay in dawladda federaalka ay ka wado magaalada Gaalkacyo kaasi oo ay la xiriireen baa la yiri safarka madaxweynaha Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay deegaanada Galmudug waa sida warka u dhigan saaxiibayaal dhanka kale war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laguna eedeeyay in uu wali wado abaabul colaad oo ka dhana Puntland waxaana maamulku uu sheegay in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa la xiriira safarka Galmudug madaxweynuhu uu ku tagayo dhanka kale madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo Galmudug ka degay ayaa waxa la sheegay inuu mashaariic horumar oo halkaasi ka jirta uu u tagay iyo arrimo kale oo Galmudug ku saabsan laakiin ma aanan maqlin wax kale oo colaad ah oo ku saabsan maamulka Galmudug iyo Puntland sida ay warka loo dhigay saaxiibayaal wixii ka run ah muuqaalada kale ayaad ku daawan doontaan fadlan muuqaalkan leega saar oo share garay nabad